بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أدقون وإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت له وإذن سلامي سلامك بعدي دعايرا كفرايا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم إنك الحميد المجيد walaalayaal waa idin salaamay salaantaasoon la soo koobi karin salaanka bacdi mawduucayga maanta wuxuu ku saabsan yahay qoys qurux badan haddaa aragtid maxaad is leedahay muxuu ku dhaqan yahay qoyskan muxuu ku dhaqan yahay baad is leedahay ma gabadha wanaagsan ma aabaha wanaagsan maxaad is oran lahayd qoys qurux badan haddaa aragtid oo meel dhisan muxuu ku dhisan yahay ma ismaqal buu ku dhisan yahay karaamo iyo xushmad xambaarsan maqayliya qajajac uu ku dhisan yahay ma hal qofaa samra bas labada qofba way isla samraan ya ra'yigiina adinka linka rabaa saxaabteyda aadka u quruxda badan magacan aan isla wadaagno adinka linka rabaa wixii oo reaction ah aniga dhankayga waxaan oran lahaa qoys qurux badan haddaad aragtid gacmo wada jir bay wax ku qabtaan baa la yidhi gacmo wada jir bay wax ku qaban karaan gacmaha sideedaba wada jir bay wax ku qabtaan moogiya halkan gacanta kaligeed wax ma wadi karto for example dhowr daqiiqa haddaad gacanta wax ku wadid later on waa daaleysaa for example laba gacmoodu ilaahay ku siiyey way kala xoog badan yihiin laakiin alxamdulilah bidax iyo midigu ilaahayna siiyey gacantaada midiga ugu xoog badan haddaad caag biyo ah cabbaar ku wadid dhinacaanaad u liicaysaa waad liicaysaa caaga gacantaad ku wadid gacantaada derbiga qabane waad liicaysaa liicitaan qof liicay baad noqonaysaa laakiin for example waxaad samaysaa laba caagoo min 5 liter ama min 10 liters ah oo biyo ah ama waxay doonaanba ha noqdeeno ama 5 kiilo ha noqdeeno labadaada gacmood ku qaad ma liicaysid istiradaad u socotaa gawdhe miisaankaaga waa dheelitiran yahay waa miisaan dheelitiran laakiin hal gacan markaad wax ku qaadid dhinacaad u godanaysaa adiga dhan geed sii dhacay camalaad u ekaanaysaa labada gees wax ku qaad ma liicaysida waxaad noqonaysaa qof taagan haddaad xitaa hongad lahayd hongadaad waxay noqonaysaa qof taagan ani ahaantayda waxaa weeyaan marka gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddii hooyada iyo aabbaha ay laba gacmoodoo isku tiirsan yihiin gurigaas waa taagan yahay samar iyo dulqaadna ay muujiyaan waa toosan gurigaas dhagdhag waa waxba kama maqno qof waliba qofka kale dabeecadda wuxuu uga samraa hebel waxaasuu qabtaa hebel waxaasay qabataa marka waa sheekada ahayd gacmo wada jir bay wax ku goyn karaan waa gacmo wada jir bay wax ku goyn karaan asxaabe
yacni hadalkayga muhiimadeyda asa ani ahaan ra'yigayga wuxuu kusoo biyo shubtay gacmo wadajir bay wax ku goyn karaan. marka taladayda tusaaladayda waxa weeyaan ragga inay xaasaskooda garab istaagaan, dumarkana inay raggooda garab istaagaan, ee gacmo wadajir bay wax ku goyn karaane wadajirkooda ee wax ku goostaan. gabdhaha walaalahayga aad qiimaha iyo qadarinta u leh, aad u sharaf badan, si ikraamo ilaahay uu siiyey, ilaahay ku hibeystay, ee Soomaaliyeed magaca quruxda badan wato oo calanka cirka u egna ilaahay uu xeyndaabka uga dhigay, xijaabka quruxda badan xeyndaab ilaaha uga dhigay, magaca Soomaaliyeedna aan isla wadaagno. waxaan idin leeyahay I love you so much. aad baan idin jeclahay. adinka haddaad ahayn limaba arki lahayn. hooyo Soomaaliyeed baa dhashay, anna hooyo Soomaaliyeed baan ahay. wiilasha walaalahay ah aad u qiimaha badan, aad qadarinta u leh, aad u xushmada badan, aad u ficilka badan, inkama reebin. aad baad u qurux badan tihiin, aad baad rag sharaf leh u tihiin. the only thing intaasaa idinka dhiman, isgarab taaga gabdhihiina. haddaan rag ahayn liima arki lahayn. saa aabbaa i dhalay, cimrigiisa allaha ii dheereeya. waa ila dhashay, igama marna. waa u dhaxay, igama marna. waxaa ilinaya adinkana I love you so much. guryihiina isgarab taaga. tartaankayga labaad ee aanan marna ka reebnayn meeshan waxay tahay yaa marna kama marna. maskaxdayda ayuu ku dhex meereysanayaa calanka buluuga ah ee cisada leh. ragow ina ragow hadda gabdhaha kuma jiraan. xalaal caleyka. gabdhaha inay wax dhisaan mooyaan wax ma burburiyaan. inta inay naga burburiso jecelna allaha idin hadeey. wiilashanada inta wax burburisa necab jecel allaha hadeey. inta jecel inay wax dhisaan allaha in la garab galaan in leeyahay. love you. waa idin salaame.